صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. بسم الله الرحمن الرحيم. دمان أرتضى وحينكم سلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحينكم سوجرني chapter كني electronics وحين دقنا مانتا lesson 7 أو lesson key to the bed. معناته راه سوق هذا lesson كل حد وحينكم سوارقني basic electronic components أما components كأساسية electronics إلى واحد سوق هذا وهو electrical components كقوات وها reed switch كلمات وها LDR أما light limited diode كالصدحات وهو thermistor أما وحلا temperature dependent resistor كان أفراد وهو سوق هذا transistor waxay kala soo qaadanay oo kan shanaada waxa la yiraahdaa light emitting diode marka shantaas electronic component waa qalabka ama electronic components ka ugu muhiimsan ee loo adeegsado electronics maanta waxaanu dhiganaynaa lesson-ka toddobaad waxay u qaadan doonaa waxa la yiraahdo logic gates waxaan qaadan doonaa logic gates marka waana casharka ugu dambeeya ee chapterka logic gates sida ka muuqata magaca ereyga logic Soomaaliya waxa la yiraahdaa maangal ama shay waxa weeye systematic ku shaqeeya ama raacaya process ba wax la oran doonaa waa shay wuxuu leeyahay logic oo logic waa si maangal ah ama si maskaxiyan u dhacaya marka gatesna way naqaanaa oo sida caadiga waxay naqaanaa albaabo ama ganjeel albaabka hore waxa la yiraahdaa waxa weeye guriga laga soo galayo waxa la oran doonaa waa gate laakiin marka kan albaab ahaan loo adeegsanayo waxa loo adeegsan doonaa waxa weeye switch marka meesha wuxuu jiraa switch marka waxa la yiraahdaa logic switches ama logic gates waa gateska ama switcheska ama daaraadmiyaasha ku shaqeeya sida logic u shaqeynaya wixii leeyahay logic flow leh logic gateska badanaa waxa loo adeegsadaa laga isticmaalaa qalabka electronic sida telefishinka sida computerska sida mobilada ama wax la yiraahdo electronic circuits oo circuitska laba loo kala qaadi karaa waxa la oran karaa wax la yiraahdo mechanical circuits waa kuwa kan caadiga ah adeegsano wire-ka iyo ka kooban wax la yiraahdo laambadii switch-kii battery-gii ka kooban wax la oran doonaa mechanical circuits kuwa badanaa ku shaqeeya transistorska iyo waxa weeye diodeska LDR-radii iyo wixii la mid ah electronic components ku shaqeeya wax la yiraahdo electronic circuits kaas marka wax u shaqeeyaan hab automatic ah habka automatic u shaqeeya waxa la yiraahdaa logic marka switcheska la isticmaali doono waxa la oran karaa logic switches ama logic gates circuitska magacooda waxa la oran karaa logic circuits mireego logic logic gate waxay ku qeexaynaa ama ku define garanaynaa circuits waa mireego ama electrical circuits waa circuits ama mireego waxay yihiin electrical koronto ku shaqeynaya in which transistors kaasoo transistorska hore u soo qaadanay waa qalab electronic component oo badanaa loo adeegsado as a switch waliba waxa loo adeegsadaa very high speed switcheska sida dhaqsada ah isu bedbedela marka waxa la adeegsan doonaa logic gates waxa la yiraahdaa circuits in which transistors waa circuits kuwaasoo transistorsku act as high speed switches ay u shaqeynayaan waxa weeye daaraadamiyaal xawaarahoodu shaqeeyo sareeyo aad u sareeyo oo shaqeynaya qaabkooda oo waxa weeye wax ku shaqeynayaan waxay leeyihiin very high speed ama si dhaqso ah bay u shaqeynayaan oo ka speed dheereeya marka loo eego switcheska caadiga ah marka loo eego
logic gateska waxa laga adeegsadaa ama loo isticmaali karaa they are used in calculators calculatorka caadiga adeegsan karo waa loo isticmaalaa waxa kaloo loo isticmaalaa digital watches saacadaha digitalka nambarada soo qora waxa kamid ah sidoo kale loo isticmaalaa industrial systemyada ama hababka warshadeed oo waxa jira habab electronic ay warshadaha qaarkood ku shaqeeyaan waxa kaloo kamid ah video recorders waxyaalaha kan videoga lagu duubo waxa kamid ah sidoo kale security lamps laambadaha security-ga ama loogu talagalay ilaalada sida wixii loo jiray fire alarmski sida waxa la yiraahdo waxa weeye alarmska kale ee loo adeegsado security-ga sidoo kale waxa loo adeegsadaa loo isticmaalo alarm systemskan alarmska ee qayliya ama bell kale ama layr kale labadaba loo adeegsan karo waxa la yiraahdaa alarm system intaas ba switcheska daaraya waa switcheska la yiraahdo logic switches ama logic circuits waxay ku shaqeeyaan logic circuitskaas ay ku jiraan transistors u shaqeynaya daaraadami speedkiisu aad u sareeyo sida suuqa marka laga hadlayo logic gateska waxay leeyahay shay kasta waxa jira laba input ama two inputs iyo wax la yiraahdo iyo output oo markii de switcheska la isticmaalayo ama la daarayo ama la daminayo way noqonaysaa waxa weeye two inputs buu yeelanaya ama inputs wax la yiraahdo inputskaas waxay leeyahay laba level ama laba logic level waxa la yiraahdo logic levels macna laba suurtagal laba shay wax waa macquul noqon karaya halkii input ka macquul noqon karaya marka wuxuu leeyahay every gate wuxuu yeelan doonaa input meel wax ka soo galaan sidoo kale wuxuu yeelan doonaa output waxyaalo soo saaray ama results ku soo saaray maxsuulka ka soo baxay marka there are outputs and inputs labaduba waxay leeyihiin waxa weeye outputs iyo inputs buu leeyahay labadaba waa leeyahay gatesku involves outputska iyo inputskaasu waxay ku qotamaan ama ku shaqeynayaan two levels of voltage laba heer voltage ama laba heer tamarkayd bay ku shaqeynayaan referred to as loo kala yaqaano high iyo low laba wax baa macquulka everyone input kasta laba macquul weeye ama laba wax waa level voltage buu yeelan karaa inuu voltagekiisu yahay shaqeynayo uu yahay high marka haddii high la yiraahdo waxa loo jeedaa waxa weeye shay wax weeye waa shay shaqeynaya waa switch daaran oo shaqeynaya waxa weeye haddii lagu yiraahdo lowna waa mid aan shaqeynayn marka waxa loo kala qaataa labada eray high iyo low sidoo kale waxa loo qaadan karaa high marka la leeyahay waxa la mid ah on waxa la mid ah wixii la oran jiray waxa weeye close labada eray waa la mid high baa la mid sidoo kale marka la leeyahay low waa ma daarna uu deesan yahay waxa la macnaa off waxa la mid ah open labada eray waa loo adeegsan karaa marka waxa jira logic gates ku leeyihiin inputs iyo outputs inputska ay yeelanayaan ama outputska ay yeelanayaan mid kastaba halka input kasta ama halka output kastaba wuxuu yeelan karaa two logic levels ama two logic voltages laba voltage oo macquulka ah inuu high voltage leeyahay ama inuu leeyahay low voltage marka laba eray baa la adeegsadaa oo aad u isticmaali doona high iyo low marka high la leeyahay high is near the supply voltage markuu u dhow yahay supply voltage voltage la soo saarayo oo badanaa switches waxa jira ama logic switches voltage ay ku shaqeeyaan marka voltageska kan u dhow ee sare voltageka sare ee badan waxa la yiraahdaa waxa la oranayaa waa high marka high is a near supply voltage wuxuu u dhow yahay voltageka la soo saaray for example high voltage wuxuu noqon karaa waxa weeye +6 volt oo badanaa operating voltagekoodu qaar 6 bay noqdaan qaar 5 bay noqdaan markuu high yahay uu sareeyo sida u fiican u shaqeynayo waa markuu 6 yahay marka waxa loo qaadan doonaa voltage-ka 6-ka waxa la oran doonaa waa high markuu shaqeynayo waa high voltage-ka yarna waxa la oran doonaa waa low lowguna waxa loo jeedaa waa 0 voltage markuu shaqeynayo wax voltage aysan marayn ama uu shaqo qabanayo waxa la oran doonaa waa 0 voltage marka 0 voltage meesha la oran lahaa iyo 6 volt waxa loo kala qaatay high iyo low labada eray baa la kala qaadanaya marka waxa la yiraahdaa two logic levels ama logic levels waxyaalaha macquulka waxa way shaygu inuu daaran yahay oo shaqeynayo high yahay ama inuu shaqeynayo yahay low labadaas mid walba
waxa lagu muujiyaa marka waxa la yiraahdo logic expressionska ama waxyaalaha logic ee soo baxa waxa lagu muujiyaa table-ka lagu muujiyaa waxa la yiraahdo truth table logic marka logic expressionska ama logic statementska aan rabo inaan number ahaan u fasiro table baa lagu muujiyaa table-ka waxa la yiraahdo truth table the output and input states xaaladaha inputka iyo outputka are represented by logic numbers marka waxa loo qaadanaya labadii logic level ee ahaa in words waxa loo adeegsadaa marka erey ahaan loo sheegayo high iyo waxa loo adeegsadaa two logic levels ku noqon doona low high waxa la macnaa baa close iyo waxa la macnaa on sidoo kale low waxa la macnaa baa off iyo open two logic levels kaas waa markii in words loo sheegayo hadii loo sheegayo in numbers waxa la yiraahdaa logic numbers laba logic number baa jira shaygu laba wax baa ka macquul ah haduu yahay high logic level kiisu waa 1 haduu yahay low logic level kiisu waxa loo qaataa wax la yiraahdo 0 marka haduu marka number loo muujiyo truth table la isticmaalayo hadaa 1 aragtid waa high macnaheedu waa shiday oo shaqeynaya shaygu hadii aragtid waxa weeye 0 aragtidna waa low ma shaqeynayo macnaheedu logic gates ku xileeyeen tables marka waxa jira tables of logic gates qaybaha loo qaybin doonaa waxa loo qaybinayaa in general laba qaybood baan u qaybinaynaa inagu waxaan u qaybin doonaa waxa la yiraahdo basic logic gates asaasiga iyo waxa la yiraahdo universal logic gates iyo logic gates ka waa ka advancedsan ama ka sareeya marka waxa loo qaybin doonaa labada qaybood basic logic gates ka waxa loo qaybiyaa iyagana saddex baa loo soo qaybin doonaa waxa loo qaybiyaa waxa la yiraahdo AND gate ereyga AND way naqaana waa in English sida ereyga caadiga loo adeegsanayaa waa iyo sidoo kale waxa weeye NOT gate waa qaybta labaad sidoo kale magaca labaad loo yiraahdo inverter roge ama bedele sidoo kale ka saddexaad wuxuu noqon doonaa basic logic gates ka OR gate waxa la oranayaa OR gate universal gates kuna only waa labo waxay ka kooban yihiin waxa la yiraahdo NAND gate iyo waxa la yiraahdo OR gate labadaas ay noqonayaan kuwa badan universal gates ka waxay ka yimaadaan kuwa ka combination kooda ama isugeeyntooda ka yimaadaan tusaale ahaan hadii NOT iyo AND la isku daro waxa ka soo baxay NAND oo ereyga inta hore ka raacday AND bay ahayd inta hore ka raacday noqonaysa NOT bay kala socotaa marka waa NAND gate oo marka NOT iyo la isku daro AND OR plus NOT-na waxay noqotaa NOR gate marka kala labada lagu daraa marna kala lagu daraa NOR bay noqotaa marna AND ka lagu daraa waxay noqotaa NAND marka labada qaybood baa loo qaybin doonaa generally kuwa kana saddexdaas ay noqon doonaan labada kana wax noqon doonaa waxa weeye universal gates kuna labadaas ay noqonayaan waxaan ku horeyn doonaa marka basic logic gates ka asaasiga waxaan ku horeyn doonaa basic logic gates qaybta ka horeeyna markaynu basic logic gates ka hadlayno waxa ugu horeeya waxa la yiraahdaa AND gate marka ereyga AND marka waxa loo qoraa marka tiraha erey ahaan ama war ahaan loo qorayo capital letters badan laga dhigaa AND waa AND gate isku ereyga AND sida inuu badan u isticmaalo waxa uu isticmaalaa iyo marka AND gate marka laga hadlayo AND gate isku xileeyay waxa la yiraahdo two inputs waxa la yiraahdo laba input ama laba shay oo soo galaya input A input B input 1 input 2 laba input ku yeeshaa only wuxuu yeeshaa one output hal output wuxuuna shaqeeyaa oo switchkaas uu shaqeyn karayaa markay labada input ay noqdaan high wordka AND marka la adeegsanayo wuxuu tagayaa iyo iyada waxa laga keenay input A iyo input B markay high noqdaan buu shaqeyn karayaa laakiin hadii labada mid uu maqan yahay ma shaqeyn karayo waxa la yiraahdaa gateska AND gate symbolkiisuna waa kan waxay qori doonaa waxa la yiraahdo symbolkii ama sumadu leeyahay AND gatesku sumad bay leeyihiin waxaan qori doonaa sumadooda sidoo kale waxaan qori doonaa waxa la yiraahdo description-kii qaabka uu shaqeynayo inaynu cadayno qeexno sidoo kale waxaan qori doonaa it is trust table sida markii la muujinayo trust table-kii loogu muujin karo saddexdaas arki doonaa marka it is symbol marka la AND gate
wuxuu ka kooban yahay it consists of 2 inputs and 1 output. Inputsku waa labo, input 1, input A iyo input B. Labada input wixii ka soo baxa output way noqotaa, waa 1 output buu yeeshaa, hal output buu leeyahay. AND gateska sida magaca ka muuqata labada input baa isku xiran, input A and input B. AND baa u dhaxaysa, labadooda maxaa u dhaxaysa? AND. marka aan marka u dhaxayso laba shay iyo u dhaxayso waa inaan labadiiba wada helaa markaan rabo inuu kala shaqeeyo. waa in labadii noqdaan maxaa weeye labadiiba ay high noqdaan. marka hadduu switch 1 high yahay ama input 1 high yahay, input A, input B na low yahay, ma shaqeynayso. sababta waxa laga rabaa labaduba waa inay noqdaan high markaas uu shaqeyn karaya. marka waa sababta loo adeegsanayo ereyga aan. marka isaga marka la sameeyo waxa labada input loo dhaxaysiyaa ereyga aan baa u dhaxaya, input A and input B. haddii labada mid uu 0 noqdo ma shaqeynayo outputku. marka isaga maxaa u dhaxaya? kala doorasho ma leh, waa aan. waa in labadii la wada helaa, two conditions waa in la buuxiyaa. tusaale ahaan haddaad rabto inaad guri gudaha u gashid, gurigaaga deyrkiisa taagantahay tusaale ahaan, markaan rabo inaan qolka fadhiga galo waa inaan laba albaab furaa. waa inaan furaa tusaale ahaan gurigaas uu leeyahay kala door, waa inaan marka hore horta albaabka kala doorka galaa, kadibna qolka fadhiga albaabkiisa ka galaa, markaas albaabka guriga gudihiisa tagi karaya. marka maxaa ku jira? waa inaan albaabka koowaad iyo albaabka labaad iyo baa u dhaxaysa. door 1 iyo door 2 waa inaan labada maxaa weeye door 1 iyo door 2 waa inaan albaabka koowaad iyo albaabka labaad labadaba furaa. marka waxa ku jira iyo haddaan laakiin albaabka koowaad furo uu kan labaadna xiran yahay, qolka fadhiga gudihiisa ma tagi karo. marka waxa ku jira meesha aan, ereyga la soco waa aan. markastaba labada waxa ka dhaxaysiisa aan baa ka dhaxaysinaysa. haddii mid uu 0 ka noqoto ma shaqeynayo, saa ku shaqeynayo. description-kiisu waa kan. waxaa la yiraahdaa this has 2 inputs. wuxuu yeeshaa maxaa weeye sida diagramkan ka muuqata 2 inputs, laba input buu leeyahay. inputskiisa hadda waxaan ku qoran A iyo P. sidoo kale wuxuu leeyahay 1 output. labada markii la helo baa wax soo baxaya. maxaa weeye resultigi la rabay. marka resultiga waxaan helayaa oo shaqeynaya shaygii oo aan helayaa markii labadaas ay hay noqdaan. marka labadaas hay noqdaan oo labadaas wada shaqeeyaan baan helayaa. marka 2 inputs iyo wuxuu leeyahay 1 output. for the output to be high, si outputkiisu high u noqdo oo u shaqeeyo, both inputs must be high. waa inay labaduba high yihiin. and gate marka laga hadlayo iyo bay adeegsanaysaa ama aan. waa in labadiiba la helaa, waa A and B. hadday labadiiba yihiin 1 and 2 waa inay labadiiba ay noqdaan maxaa weeye labada input waa inay high yihiin. hadday labada input high yihiin, markay labada input high noqdaan buu outputkuna high noqonaya. otherwise wuxuu noqon doonaa maxaa weeye outputku low haddii labada mid aysan shaqeynayn. marka ereyga maxaa u dhaxeeya laba shay oo markasta loo wada baahan yahay, waxaa loo wada dhaxaysiyaa aan. waa in ay tusaale soo qaato waa inay shaqada yimaadaan Ali iyo Maxamed, labadaba wada baahnaay weey macna. haddii Ali la waayo shaqeyn shaqadu socon mayso, haddii Maxamed la waayo shaqadu socon mayso. marka waa in la daaraa inputka A, waa in la daaraa inputka B, markaas uu shaqeyn karaya output soo baxay. tusaale ahaan waxa loo adeegsado waxa kamid ah loo isticmaalo gadaal ku arki doono markaan rabaa highlight inaan sameeyo ama aan harayo cashar. waa inaan qabtaa control plus A. waa inaan dhahaa control haddaan kaliya qabto maxay ka maqan? A way ka maqan. marka waxa u dhaxaya control iyo A. haddii aan controlka qabto oo aan A qaban waxba ma soo baxay, wax ma hayleeto garoobayaan. haddaan A qabto aan controlka qabana waxba ma hayleeto. marka maxaa loo helay si aan inputka outputka highlightingka u helo ee wax loo harayo, waa inaan helaa labaduba control iyo A waa inaan wada helaa. control iyo A waa inaan wada helaa. marka waa in labadii wada shaqeeyaan. marka aan geedku qaabkaas ku shaqeynaa waa inaan si ay outputku u high noqdo labada input waa inay high yihiin. in other words, haddii dhan kale laga eego Q waa output Q halka inuu ka muuqda is high
waa high oo waa shaqeynaya if inputs A and B are high haddii labadaas wada yihiin high haddii labada mid laakiin uu high noqon waayo inputkaas waa low trust table kan eego trust table ka gateska marka la muujinayo waxa la isticmaali doonaa tirooyinkii ama numberadii laba number baynu sheegnay two logic numbers 0 iyo 1 baa la isticmaalaya haddii shaygu daaran yahay switchku uu yahay on ama uu yahay close switch ama uu yahay high waxa la adeegsan doonaa 1 logic level 1 haddii uu yahay uu dansan yahay uu yahay maxaa weeye off ama uu yahay low ama uu yahay maxaa weeye open waxa la oran doonaa maxaa weeye waxa loo qaadanaya 1 markii trust table la buuxinayo tusaalaan kan wuxuu leeyahay laba input buu leeyahay halka ku qortay maxaa weeye inputskay waa labo input A iyo input B labadaas aan qortay waa input A iyo input B laba input baan haystaa labada input wax ka soo bixi doona one output ka waxaa la yiraahdaa Q markaan trust table kan buuxinayo mid kastaba every input wuxuu yeeshaa two logic levels laba wax ka macquul ah mid kastaba waxa macquul ka ah inuu daaran yahay inuu dhisan yahay mid kastaba maxaa macquul ka ah inuu daaran yahay inuu dhisan yahay marka A na wuxuu leeyahay logic level 1 wuu yeelanayaa logic level 2 wuu yeelanayaa logic level 1 wuu yeelan karaa logic level 0 wuu yeelan karaa B na logic level 0 wuu yeelan karaa logic level 1 wuu yeelan karaa marka mid kastaba maxaa ka possible ah laba possibility leeyahay marka labada possibility leeyahay waxa loo qori karaa habka noocan loo qorayaa tusaale ahaan table-ka la iskama buuxin tirooyinka la iskama buuxin waa la isbar dhigaya tusaale ahaan possible ka logic koowaad waxa weeye in labada input ay dansan yihiin input A haduu dansan yahay input B na dansan yahay waa 0 iyo 0 da maxaa loo jeedaa waa low level haddii labadu low level yihiin kow marka hore maxaa macquul ah inay labadu wada yihiin low level sidoo kale waxa macquul ah marka labaad maxaa macquul ah inuu kana A-da low yahay kan B-da ana uu yahay high sidoo kale waxa macquul ah isla marinaya waxa macquul ah inuu kan koowaad oo A-da ah uu yahay high kan B-da uu yahay maxaa weeye low marka waa 0 kan macquulka saddexaadna waxa weeye probability-ga ugu dambeeya afraad waxa weeye 1 iyo 1 inay labadu wada daaran yihiin marka waa inay wada dasan yihiin inuu labadu wada dasan yihiin waa kow waa possibility ka koowaad inay labadu wada 0 yihiin in A 0 yahay logic level-ka labaad ama possibility-ka labaad waxa inuu A 0 yahay laakiin B uu weyn yahay waa ka labaad daba mari tan saddexaad waxa weeye inuu A 1 tahay A B na tahay 0 kan afraadna waxa weeye in labadu wada shaqeynayaan waa afartaas possibility leeyahay four possibilities two inputs ka marka la isba bardhigo labada input four possibilities bay yeelanayaan inay wada dasan yihiin inuu mid daaran yahay ama A daaran yahay ama B daaran yahay iyo in maxaa weeye labadu wada daaran yihiin afarta possibility bay yeelanayaan markaan table-kan buuxinayo qaabka loo buuxin karo waxa la oran karaa kan waxa uu horeeyay 0 ku buuxi marka buuxinaysa labada tan si caadi ah isaga sii buuxsada tusaalahan possibility-gu kan 0 isaga buuxi xagana 1 kan isdhex gali maxaa horeeyay labada 0 horeeyay A-da marka buuxinaysid trust table-ka A buuxinaysid input-ka A marka buuxinaysid labada 0 horeeyay tusaalahan labada wana waa horeeyay kartaa laakiin labada 0 horeeyay labada wana dameysi afarta lambar baa qoraysa laba 0 iyo laba 1 sida u qor kan B-da marka muujinaysid isdhex gali 0 qor 1 qor 0 qor 1 qor hadaa lambarka u horeeysid ku xijin 0 qortay 1 ku xiji 1 ka maxaa ku xiga 0 ku xigta 1 baa ku xiga isdhex gali marka kan koowaad sida u buuxisay kan koowaad hadaa isdhex galisid marka labadu waa isku mid hadaan kan koowaad isdhex galiyo kan koowaad aan dhaho 1 0 1 0 kan kala waa inaan orada 0 0 1 1 waa inaan qora marka qaabkaas loo buuxinaya labada adaa buuxsanaya possibility-guna marka la isku akhriyana waxa weeye inay labadu 0 wada yihiin inuu A 0 yahay wan daaran yahay waa possibility-ga labaad inuu wan daaran yahay laakiin ka dambe uu dasan yahay inay labadu wada daaran yihiin waa afarta possibility in output-ka soo baxa marka aan u dhaxaysay 0 and 0 de waa 0 maxay soo sheegnay marka aan gay tahay waa inay labaduba yihiin high haddaysan labadu high ahayn
oo inputka A iyo input B aysan high ahayn Q wuxuu noqon doonaa low mid kamid ah low yahay adigu waxa eeganaysa only one markay tahay aan waxa eegan doontaa haddii mid kamid ah uu yahay low outputku waa low taasa eeganaysa marka haddii labadu wada low yihiin waa low marka waxa eeganaysa mar kaliya noqon kara high outputku markay tahay AND gate-ka waa markay labadu ay wada yihiin high inta kale maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa maxaa weeye way noqonaysaa low tusaalahan kan maxaan idhi waa 0 iyo 0 waxay noqonaysaa maxaa weeye waa 0 kana maxay noqonaysaa 0 iyo 1 waxay soo baxaysaa 0 kana waxay noqonaysaa 1 iyo 0 waxay soo baxaysaa 0 kana waxay noqonaysaa 1 iyo waxay noqonaysaa 1 waxay noqonaysaa waxa soo baxaysa 0 qaabkaas loo akhrinay marka logic gateska marka laga hadlayo AND gate hal mar buu hay noqon karaa only waa marka ay 1 yihiin marka kaliya uu noqon karaa maxaa weeye hay noqon karaa halka mar buu noqon karaa hay marka wuxuu leeyahay this has two inputs leeyahay laba input one output iyo hal output for the output so output ko hay uu noqdo waa inay labadu yihiin input ba waa inay hay noqdaan ama waxa la oran karaa hadii Q halkan ka muuqata ay tahay high noqoto goormay high noqonaysaa if A and B are high mar kale ma noqon karto hadii labada mid low noqdo ma shaqeynayso symbol-kiisuna waa kan symbol-kiisa waxa lagu gartaa halka dambe way simantahay hadhow OR gate-ka arka doona uu ka duwan yahay halkan waa straight halkaas waa simantahay markay aan tahay kana afku ma dhuumne waa circle afku saas u wareegsan yahay ka waxa la oran doonaa AND gate balaanag AND gate-ka aragno sida loogu muujiyo waxa jira daawaytaynu niri waa electronic circuit iyo laakiin waxa lagu muujin karaa mechanical circuit si uu u fududeyso fahamka circuits-kana caadiga waa ku muujin karnaa si inuu ku fududaato fahamka ama understanding u fududaado waxa ay karnaa mechanical gate AND gate circuit markay AND gate tahay si mechanical loo muujin karayo waa kan si mechanical marka loo muujin karayo waa kan markii mechanical loo muujin karayo kan wuxuu yahay AND gate switches-ka markay aan badan laga hadlayo inputs-ku waxay noqdaan serious inputs waxa loo qoraa in serious ahaan baa loo xiraa taxane ama circuit serious noqdaan switches-ku waa serious switches labada input badan wax noqdaan markay aan laga hadlayo waa serious oo waxay serious u xiran yihiin laambada waxay u xirmaan maxaa weeye serious buu xiray labadooduna serious ay soo xiran yihiin laba input baan haystaa kan waa battery high iyo low waa voltage maximum voltage waa 6 zero voltage kuna noqon karaa zero noqonaya low voltage AND gate marka laga hadlayo switch kaas wuxuu daarmi karaa ama high noqon karaa bahalkan laambada tan sidan oo ka muuqata diagram kan markii A iyo B ay high noqdaan hadii labada mid uu dansan yahay ama labada wada dansan yihiin uu noqonaya waxa weeye wada dansan yahay dhaqdhaqaaq wada sameynaya ama diagram kan waa shaqeynaya marka eegto markuu wada daaran yihiin waa shidaya markay wada dansan yihiin uu dansay markuu mid dansan yahay kana di B and W ama inay wada daaran yihiin waxay noqonaysaa maxaa weeye inay wada daaran yihiin hadii A daaran yahay laakiin B dansan yahay ma shaqeynayso hadii B daaran tahay dansan tahay B daaran tahay ma shaqeynayo hadii labadu wada dansan yihiin ma shaqeynayo laakiin wuxuu shaqeynayaa markii labadu hay wada noqdaan labadu markii wada daaran yihiin bularku ifaa tusaalaan u fiirso waa kan leer goor mu shidmaya markii labadu wada xirmaan marka diagram ku fiirso hadii wada xiran yihiin mid baa furan waa wada xiran yihiin uu daaran yahay hadii marka labada mid uu yahay low ma shaqeynayo hadii labadu wada low yihiin ma shaqeynayo laakiin wuxuu shaqeynayaa markii labada switch ba wada high yihiin ama labada switch wada shaqeynayaan trust table kan bal circuit kana laga muujinaya AND gate-ku wuxuu shaqeyn karayaa waa A iyo B input A switch A input B switch B waa labada switch A markuu yahay 0 switch B na yahay 0 waxay noqonaysaa maxaa weeye output-ku waa 0 sababtoo ah waa AND gate
labaduba waa dansan yihiin 0 maxay cadanaysaa in labadu dansan yihiin haddii labadu dansan yihiin isaguna wuu dansan yahay output ma jiro laambadu ma bixi karto haddii ay dansan tahay b daaran tahay labada mid baa dansan 0 and 1 dee labadu waa 1 wada noqdaan 0 mar haddii meesha ku jirto uusan mid low yahay waa 0 1 hadday noqoto kan koowaad a hadduu high yahay b na uu low yahay waxay noqonaysaa low ama 0 only goormay high noqon kartaa markii 1 and 1 markii labadu high wada yihiin bay high noqon karaysaa waxay noqonaysaa high marka hal mar buu markay AND gateska yihiin maskaxda ku hay markay AND gateska yihiin hal mar buu bixi karaa ama output ku noqon karaa high waa marka kaliya ee labada input ay wada yihiin high haddii labada input mid low yahay ama labadu low wada yihiin ma shaqeynayo output ku noqon doonaa low mechanical circuit-kiisuna waa kan laambadaas waxay bixi kartaa oo kaliya markay labada switch xiran yihiin laambadaas waa dansan tahay markay labada switch furan yihiin markay A ama furan yahay ama B furan yahayna way dansan yihiin laakiin waxay shaqeynayaan markay labada wada xiran yihiin layrkaas uu bixi doonaa ama laambada Q ay baxaysaa waxaan ku xidin doonaa uses buu leeyahay AND gate-ku marka applications adeegyo ama real life applications waxyaalaha nolosha caadiga ah ee loo isticmaalo uu leeyahay applicationskiisa waxa kamid ah ama wax la yiraahdo real life applicationska uu leeyahay waxa kamid ah baabuurta badan la isticmaalo vehicleska ama truckska loo isticmaalo baabuurta waaweyn loo isticmaalo xamuulka waxay badan leeyihiin two doors waxa loo jeedaa marka baabuurta laga hadlayo inuu Soomaaliland daaqad weyn ahna laakiin English waxa la yiraahdaa doors wuxuu leeyahay laba albaab ama laba daaqadood sidoo kale wuxuu leeyahay waxa weeye starterka waxa la yiraahdaa ama self starterka waxa la yiraahdaa gaariga meesha laga daaro waa la self starterka marka gaariga weyn si uu qofku ugu badbaado uusan uga dhicin ama dadku aysan uga dhicin maadaama gaarigu dheer yahay waxa la isku xiraa oo aan ahaan loo xiraa ama AND gate loo xiraa waxa la yiraahdo labada daaqadood iyo waxa la isugu xiraa switchka serious oo waxa la isugu xiraa self starterka serious la isugu xiraa marka gaarigaas wuxuu daarbi doonaa ama self starterkiisu daarbi doonaa markii labada daaqadood xiran yihiin haddii labada daaqadood mid furan tahay ama labadu wada furan yihiin waxa weeye ma shaqeynayo marka self starterku wuxuu outputkiisu uu noqon doonaa outputku high noqonaya markii door 1 ay tahay closed door 2 na ay tahay closed oo macnaha door closed ku maxay tahay waa 1 door 1 door 2 na ay tahay 1 iyo 1 self starterku wuxuu noqon karaa maxaa weeye gaarigu daarmaya outputku waa high laakiin haddii labada mid u furan tahay tusaale ahaan haddii daaqada door 1 ay tahay high door 2 tahay low output kuma shaqeyn doono sababtoo ah waxa laga reebay inay labaduba hay yihiin iyo u dhaxaysa circuit-ku waa aan circuit-iska badana input-iska waxa loo xiraa serious tusaale ahaan self starterku waa ka dhexda yaala serious buu leexinaya self starterka current-ka ka yimaada ilaa dabka shadaya wuxuu daarmi karaa markii switch kan A oo ah door 1 uu yahay close goormuu switch ka door 1 close noqon karaa waa markii daaqadu xiranta soo xiranta markii daaqadu xiran tahay uu noqonayaa 1 uu daarmaya laakiin inta daaqadu furan tahay waa low sidoo kale markuu kaasu high haduu noqdo laakiin kan uu yahay low waxa way ma shaqeynayso laakiin maxaa laga rabaa shuruuda ku xiran waa in labadu wada hay yihiin haddii labada mid uu kamid ah oo labada daaqadood furan tahay ma shaqeynay marka qofka dareewalka wuxuu ku khasban yahay markuu gaariga galo hadduu labada daaqadood mid uu dhiilaawo waxa xasuusinaya gaarigu ma daarmayo kadibna wuxuu oranayaa war daaqada tan iyo daaqada mid uu furan soo xiraya labada daaqadood soo xiraya waxay ku shaqeynaysaa AND gate saddexda waxay wada xiran yihiin maxaa weeye AND gate bay wada xiran yihiin waa in la helaa maxaa weeye waa inay noqotaa door 1 high door 2 high self starterku markaas uu noqonayaa high marka AND gate bay ku shaqeynaysaa waxa la yiraahdaa AND gate can be used in motor vehicles baabuurtan waaweyn baa loo isticmaalaa switch can be wired to both doors switchkeeda waxa lagu xiri karaa self starterka ama motorka gaariga daaridiisu waa waxa lagu xiri karaa labada daaqadood in serious way baa loola xirayaa the self starterka the car only be started
gaarigu wuxuu daarmi doonaa if and only if both doors are closed gaarigu wuxuu daarmi karaa markii labada daaqadood ay xiran yihiin marka labada daaqadood xiran yihiin maxaa loo jeedaa labada daaqadood markay yihiin switch on ama yihiin high self start ku noqon karaa high laakiin if hadii labada daaqadood mid furan tahay uu noqonayaa low marka gaarigii maxaa lagu ogaanayaa in daaqadihii inaysan xirnayn qofku suu uga taxadaro in ay yihiin maxaa weeye labada daaqadood bixirayeen marka door 1 iyo door 2 wayna yihiin iyo baa waxaysa door 1 and door 2 saas u shaqeysa way angate way ku shaqeysa application ka labaad ee leeyahay angate school waxa kamid ah waxa loo isticmaalaa in computers marka keyboardka computerka isticmaalaysid waxa la isticmaalaa shortcuts waxyaala shortcut ah shortcuts-ka waxa kamid ah hadaan rabo inaan wax highlight gareeyo waa inaan laba button isla qabtaa control plus a marka control plus a markaan qabto highlight baa koraya ama shaygu waa haraysmaya marka ma highlight gormu highlights shaygu noqonaya markii laba la helo markii control-ka la qabto eena la qabto laakiin hadii labada mid aan qaban ma noqonayso marka maxay ku shaqeysaa control and a control and v control and s kulli aan bay u shaqeynayaan waa plus isku labadaas la isku daraya waa aan waa inay labadu wada shaqeeyaan marka shortcuts-ka computerka waxa lagu sameeyay angates bay ku salaysan tusaale control plus a oo ah sida loo highlight karayo waa in control iyo a la qabtaa laba button laba input baa haystaa hal output baa soo baxay inuu highlight karismay control plus v laba input baa haystaa oo inputku waa control iyo v wayna labada qabtaa si aan pass u iraado bulshada pass gareyn kara markaas sidoo kale control plus s oo loo adeegsado save shaygu waxa la save gareysmi kara oo save soo bixi kartaa outputka save soo bixi kara markii control-kuna control ay high noqoto aan taabto s na aan taabto labada markay high noqdaan wuxuu noqonayaa waxa weeye save oo high noqonaya markaas uu shaqeynaya marka computers kala adeegsada using computers when you press two buttons marka laba buttons qabatid together to get one output si aan hal output u helo ama way highlight kala soo doona ama way pass garoobi doona ama way save garoobi doona hal output baa soo baxay using is being used angate baa la isticmaali doona sidoo kale waxa loo isticmaalaa angateska waxa la yiraahdaa dial numbers marka lambarada garaacisid marka telephone tani garaacid marka golis ka hadlayno numberka golis waxa khasab ah in qof markasta garaaco 7 lambar waa 6 lambar oo caadi ah iyo furaha dheeraadka furo ama 6 buu noqdaa ama 7 buu noqdaa ama 5 buu noqdaa shanta furahaas caadi marka lambar garaacayo waa inay yiraahdaan waxa weeye 7 lambar waa inay dhameystiraa hadii aan 1 lambar ka tagtid ma garaacayo marka maxay ku shaqeynayaan aan tusaale marka lambar qorayo 73 oo kala ah 73 marka maxaa ugu horeysanaya 7 and 7 wayna 7 kala raacaya plus 3 plus 5 plus 3 plus 4 plus 8 wayna lambar ku soo qoray marka hadii aan ka tago tusaale 8 ka u dhameeya hadaan ka tago waxa dhici doonta maxaa weeye ma garaacayo lambarkii ma galayo 6 lambar hadaan ka dhigo ma galayo ama kan u horeeya ka tago ama mid dhex ka tago maxay ku shaqeynayaan 6 lambar 6 button waa inaa lambarka mobilka taabataa 6 button hadaadan taaban lambarkaas ma galayo marka maxay ku shaqeynaysaa angate ma ku shaqeynaysaa dial numberku outputku muxuu noqonayaa outputku wuxuu hay noqon karaa oo lambarkaas ku dhici karaa markaad inta input ba ama 7 input ba ay ka dhigtid high hadii laakiin mid kamid ah uu low yahay ama 6 lambar ay noqdaan ama laba kamid ah low noqdaan inputkuna wuxuu noqon doonaa low outputkuna low noqonaya marka dial numberska la adeegsado sidoo kale isla markana ka bixin dial numberska waxa loo adeegsadaa wax la yiraahdo password numberada passwordka marka ku qoranaysid tusaale marka passwordka ee mobilkaaga samaysanayo waxa ka dhigay tusaale 4488 baa ka dhigay haddaan 4488 ka dhigay hadhow markaan furayo waa inaan 4488 taabtaa haddaanan taaban intuba aan high ka dhigin waa inta wada taaban macnaheedu maxay noqonaysaa ma furmayo mobilkii hadii sidoo kale waxa loo adeegsadaa waxa la yiraahdaa sahal service oo passwordka sahal service qof kasta wuxuu sameeyay special password u khaas u leeyahay passwordkaaga lambarkaaga hadaa mid kamid ka tagtid marka u dambaysa waa ka xirmaya marka muxuu ku shaqeynayaa angate waa inay yihiin 4 and 4 and 8 and 8 waan soo qortaa laakiin inta waa muhiim inta in la wada qoro marka in la wada noqdaan highway wada way
marka waxa la in a dialing telephone call you apply and get waxa asaas ugu apply garaysa and get ba ku apply garanaysa you apply and get if you miss only one number the input of the gate becomes 0 and then it is output kana waxay noqon doontaa of your activity becomes 0 waxba ma garaacmaya markaas sidoo kale waxa loo adeegsadaa waxa yiraahdo recorderada waaga hore la adeegsan jiray laga yaabaa in ay yartaa hadda jirta aysan aad badan oo aqoonayn waaga hore recorder la adeegsan jiray recorderkeena caadiga ah recorderka waxa la isticmaali jiray cajilada marka wax ku duubaysid warabtidana cod duubtid tusaalahan cod baan rabaa inaan duubo oo cajil ku duubo record baan adeegsanaya record wuxuu yeeshaa laba button buu leeyahay waxa la yiraahdo record button iyo play button record button-ka iyo play button-kuna waxay xigaan meesha u horeysa markii la rabo in la duubo wax la duubayo waa in labadu wada shaqeeyaan laba input buu leeyahay marka inputku waa inuu noqdo 2 oo record and play marka wax duubayo si cod ugu duumo aan cod u duubo waa inaan labada wada taabtaa haddii aan belayga taabto kaliya oo recordka aan taaban labada button ma shaqeynayo haddaan kaliya recordka taabto oo belayga taabanna ma shaqeynayo haddaan laakiin labada wada taabto labadaba high ka dhigo recording way soo baxayo way noqonaysaa output-kii waa high marka waxa la yiraahdaa and gate maxaa loo adeegsadaa user cassette recorders ajiladaha waxyaalaha lagu duubo the cassette will only start recording cassette-ku ama ajilku wuxuu duubi karaa wax lagu duubi karayaa if record and play labada button waa laba button are priced together labada wada qabatid labada wada riix jiray dadka badanaa isticmaali jiray waaga hore way garanayaan labada wada riix jiray marka wax la duubayo haddii laakiin aad belayga riixdid cod un baad baasha un baa wareegaysa haddii aad kan kala riixda bacdina waxa way riixdidna ma shaqeynayo waxba ma duumaya waxna ma shaqeynaya laakiin labada marka wada taabto ajirkuna waa dhaqaaqaya codkuna waa duumaya output marka soo baxay waxa la yiraahdaa cassette play recorders waa kan diagram ahaan and gate way recordka waxa ku xiran and gate marka waa record button kana waxa la yiraahdaa kan hoosena waxa la yiraahdaa play button marka kan marka play button kana taabto record button kana taabto play button kana taabto waa ba recording ku soo baxaya laakiin haddii kana aan taabto aan kan taaban de ma shaqeynayso sababtoo baa laga rabaa waa record and play waa inuu dhaxaysa haddii labada mid uu maqnaado uu low yahay wuxuu recording low noqonaya output kuna waa low